kiiska masayrka marwada madaxweynaha Kenya wuxuu muujiyay in masayrka dumarku aanu waxba tixgelin madaxweyne iyo shacab wuxuu doona ha ahaadee wuxuu kaloo muujiyay awoodda dumarka xaasaska ah iyo go'aanka ay ku leeyihiin nolosha madaxweynayaasha. saxaafadda Kenya ayaa baahiyay in madaxweynihii Kenya Mwai Kibaki uu si qarsoodi ah u guursaday xaas labaad ayna carruur u dhashay. arrintaas waxaa aad uga masayray marwadii madaxweynaha Kenya, waxayna samaysay arrin naadir ah oo aanay horay u samayn haweeney marwo madaxweyne ah iyadoo horteed. wargeysyada Kenya qaarkood ayaa muddo bil ah qorayay in madaxweyne Mwai Kibaki uu yahay nin guur badan, waxaana lagu xamalayay inuu qudbasiro ku qabo xaas kale oo la yidhaahdo Mary Wambai oo ahayd siyaasiyad xubinna ka ahayd xisbigii madaxweyne Mwai Kibaki ee xilligaas. Lucy Kibaki oo ahayd xaaskii madaxweyne Mwai Kibaki ayaa xaqiiqsatay markaas kadib in ninkeedu uu leeyahay xaas labaad oo qarsoodi ah oo degan gobol xeebeedka Mombasa, waxayna qaadatay go'aan adag oo ay dad badan la fajaceen xilligaas. marwadii koowaad ee dalka Kenya waxay weerar ku qaaday qaar ka mid ah xarumaha warbaahinta Kenya, waxayna ku amartay inay caddayn buuxda u keenaan wararka ay ninkeeda ka qoreen, waxayna soo jeedisay inaan ninkeeda madaxweyne loogu yeeri karin ilaa inta uu bari ka noqonayo inuu xaas labaad leeyahay iyo in kale. waxayna intaas ku dartay haddii ninkeedu war ay ku qanacdo uu la iman waayo inay la tegayso maxkamadda sare ee Kenya. maalmo kadib habeen xilli saqdhaxa ah ayay marwadii madaxweynaha Kenya waxay weerar ku qaaday ninkeedii madaxweyne Kibaki isagoo hurda, waxayna u sheegtay inaanay cid kale waxba ka dhageysanayn oo aanay tixgelinayn xasaanadiisa madaxweyne. waxayna ku tiri isla saacaddan ayaan kaa rabaa inaad dadweynaha Kenya iyo dunidaba u caddaysid inaad keligay qabto, waana inaad qabataa hadda shir jaraa'id oo aad sheegtaa inaan ahay xaaska keliya ee aad leedahay. madaxweyne Kibaki oo jahwareersan ayaa ugu dambayn aqbalay amarkii xaaskiisa, laakiinse waxa uu ka cudur daartay inay xilli dambe tahay oo aanu xilligan warbaahinta la hadli karin. laakiinse madaxweynaha iyo xaaskiisa waxaa soo dhex galay qaar ka mid ah mas-uuliyiintii madaxtooyada iyo raggii borotokoolka u qaabilsanaa madaxweynaha. maadaama ay saqdhexe ahayd Lucy Kibaki marwadii madaxweynaha, waxaa lagu qanciyey in madaxweynuhu uu berrito qabanayo shir jaraa'id. subaxii xigtay dadweynaha Kenya waxay ku waabariisteen madaxweynihii Kenya Mwai Kibaki oo xasilooni darro ka muuqato oo aqalka madaxtooyada Kenya saxaafadda ugu yeeray si uu uga jawaabo dacaayadda laga faafiyey uuna u caddeeyo inuu leeyahay hal xaas oo Lucy la yidhaahdo. madaxweyne Kibaki oo ay garab taagan tahay xaaskiisa oo xanaaqsan waxa uu yidhi sidan: I want to make it very clear that I have only one dear wife, Lucy. waxaan doonayaa inaan si cad oo waadixa u sheego inaan leeyahay hal xaas oo la yidhaahdo Lucy oo halkan joogta, mana lihi xaas kale. dhagaysta, waxaan leeyahay ma lihi xaas kale oo aan iyada ahayn. haddii aad su'aalo rabtaan i weydiiya, waan idinka jawaabayaa. madaxweyne Kibaki xilligaas uu shirka jaraa'id ka hadlayay waxaa dhinac taagnaa xaaskiisa Lucy, waxaana gadaashiisa taagnaa taliyihii booliska Kenya. markii uu hadlayay madaxweyne Kibaki xaaskiisa Lucy carab badan ayaa ka muuqatay. markii uu hadalka dhammaystay madaxweyne Kibaki xaaskiisa ayaa warbaahinta waxay ku tiri weydiiya su'aal kastoo aad rabtaan, wuu ku khasban yahay inuu ka jawaabo. in badan oo ka mid ah haweenka dunida ayaa aad u taageeray go'aanka lama filaanka ah ee ay qaadatay Lucy, waxayna ku tilmaameen haweeney karti badan oo ku dayasho mudan. qaar ka mid ah madaxdii la shaqaynaysay madaxweyne Kibaki xilligaas ayaa soo wariyey in maalmihii masayrka Lucy ay maalmo adag u ahayd madaxweynaha Kenya Mwai Kibaki oo uu isku dayay xitaa inuu ku soo shaqeeyo xarunta wasaaradda arrimaha gudaha isagoo ka cararayay buuqa xaaskiisa. laakiinse marwo Lucy ayaa isla wasaaraddii arrimaha gudaha uga daba tagtay, waxayna ku tiri haddii aadan waxba isku ogeyn maxaad uga soo tagtay xafiiskaagii iyo madaxtooyada. madaxweyne Kibaki oo warkaas meel uu ka dhaafo garan waayey ayaa dib ugu soo laabtay hoygiisii iyo xafiiskiisii madaxtooyada. falanqeeye Goodluck ayaa tilmaamay haddii la rabo in waddan la khalkhal geliyo ama la inqilaabo dhinaca dumarka laga soo mari karo, wuxuuna sheegay in dhacdada
masiirka marwada madaxweynaha Kenya ay muujisay awoodda haweenka xaasaska ah, wuxuuna soo jeediyey in la xadido awoodda xaasaska madaxweynayaasha oo laga hor istaago in madaxweynaha dalka ay wax kasta ku samayn karaan. sharcigii dhigayay in madaxweynaha dalka Kenya hal xaas kaliya yeesho, haddii uu mid kale u baahdana uu ogolaansho weydiisto xaaska markaas joogta. sharcigaas waxaa la bedelay sanadkii 2014 xilligii uu talinayay madaxweyne Uhuru Kenyatta. sharciga Kenya ee hadda ayaa dhigaya in ninka madaxweynaha ka noqonaya Kenya uu guursan karo inta uu doono oo dumara. xaaska madaxweyne Kibaki, Lucy, ayaa lagu sheegi jiray haweeney karti badan oo saameyn weyn ku lahayd siyaasadda dalka Kenya. dhacdada masiirka xaaskii madaxweynaha Kenya, Lucy, ayaa dhacday sanadkii 2009, laakiinse waa dhacdo aan weligeed ka duugoobayn dhinaca bulshada Kenya oo ay weli xasuustaan, marar badanna warbaahinta iyo bulshadu ay dib u soo hadal qaado. idinkuna nala wadaaga fikirkiina sida aad u aragtaan ficilka ay samaysay Lucy, marwadii madaxweynaha Kenya.